Assalaamu calaykum asxaabta qaaliga ku xiran channelkayga cunto karinta iyo macmacaanka ee Mema Cooking and Sweeties. waa walaashiin Mema oo idin wado muuqaal cusub. fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe inoo saar, haddii aad hore inoola joogtay kusoo dhawow muuqaal cusub. asxaabta qaaliga sida u dhantihiin waxaan idin wadaa doolshadan oo aan sameeyay oven la-aan ama foorno la-aan sida u taqaanaanba. waxaan ku sameeyay dhuxusha ama burjikadeena caadiga ah. marka asxaabta qaaliga waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen dhammaantiinaba. haddii aan arko kommentiyadiina inaa yacni daneyneysaan qaabka u sameeyay doolsho foorno la-aan waan idin soo gelinayaa. haddii aad jeceshahaan qeybaha commentiga igu reeba. xaqiiqatan waxaa waaye ana aad iyo aad ayaa uga helay doolshadaneeti, idinkana waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan markii aad sameysataan. marka insha Allah berito iyo wixii ka dambeeya ayaa idin soo gelinaa hadduu alla qadaro. dhinaca kale waa kaasaa doolshada laba dhinac waxaa ka dhigay gaduud ayaa ka dhigay. aad iyo aadna way u qurux badan tahay labada dhinacba maasha Allah gaduud ayay noqotay. haddii aad si u fiirisid waxaa is leedahay doolshada foornamiyaa lagu sameeyay laakiin foorno la-aan ayaa sameeyay. marka waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen qaabka ay kusoo baxday. labada dhinacna uga dhigay gaduud. sidoo kalena codsiyadiina haddii aan ka arko oo yacni inaad daneyneysaan ayaan qaabka u sameynayo waa idin soo gelinaa insha Allah. waxaa jiro gabdho badan oo isticmaalo dhuxul xitaa aanan isticmaalin shoolada noocyadeeda kala duwan. xitaa gabdhaha soo daneynayo inay sameystaan doolshada. marka sidaas daraadeeda aniga waa idinka soo tijaabiyey dhuxul ayaan ku sameeyay sidaan ayayna kusoo baxday. gabdhahaas ayaa rabaa inaa u faa'iideeyo. asxaabta qaaliga waxaa rajeynayaa in yacni dhammaantiinaba aad ka hesheen. qof walba wax ayuu isticmaalaa jikada markii laga hadlayo. dadka qaar shoolad ay isticmaalaan, shoolad foorno leh, shoolada caadiga labada god. dadka qaarna dhuxul ayay isticmaalaan. wax walba adi aa haysato waa ku sameysan kartaa wixii adi aad doonto. kaliya waxay ku xiran tahay adiga iyo qaabka aad wax u sameyneysid ayay ku xiran tahay. anina waxaa waaye waxaan rajeynayaa inaa idin soo gali doono muuqaalkaas oo dhammaystiran waa sida idin dhahay. haddii yacni idinkoo daneynayo aan arko insha Allah. marka waxaa waaye doolshadan waxay ka mid tahay macmacaanka ayay ka mid tahay, wayna fududahay. waxyaabo badanna ma u baahno. waxyaabaha laga sameynayo waa waxyaabo guriga yaalo waaye oo badankeen aan heysano. haddii ahaan leh sokorta iyo saliida iyo burka, heelka, carfiso iyo faniilo, intaas ayaa laga sameeyaa doolsho. cafwan taleefon ayaa igu soo dhacay. sidoo kale bakinka ayaa ku dareysaa oo muhiim ah. marka muuqaalka inta yar waa ka jaray, dhinaca kalena waa aniga idin tusiyay. marka doolshan waa iska fududahay, waxyaabo fudud waaye. dad badan waxaa jiro oo soo banaanka soo gato doolshada iyo waxyaabaha iyo rootiga, laakiin waxaan jeclaa doolshada inaad guriga ku sameysto. marka insha Allah asxaabta qaaliga waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan yari. haddaad soo codsataan waan idin soo gelinayaa qaabka aan u sameeyay. waa ku mahadsantihiin daawashadiina mar kale.